madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa xariga ka jaray maxjarka Jubba ee horumarinta xoolaha ee magaalada Kismaayo oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Kismaayo burburkii dalka kadib munaasabadii xarig jarka maxjarka Jubba waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradaha xanaanada xoolaha Soomaaliya iyo Jubbaland ganacsato iyo qaybaha bulshada maxjarkan oo loo dhisay qaab casri ah ayaa waxa uu yeelan doonaa qaybaha calafka biyaha iyo nasiinada xoolaha madaxweynaha ugu horeyn xariga ka jaray maxjarka ayaa waxa uu kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay maxjarka gudoomiyaha degmada Kismaayo gudoomiyaha ururka haweenka ee Jubbaland iyo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka iyo kan dhalinyarada iyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland iyo sidoo kale aqoon-yahano ganacsato ayaa goobta ka hadlay waxaana ay dhamaantood sheegeen in maxjarkan uu ka qayb qaadan doono horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fursadaha shaqo helista ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtaar Sheekh Axmed maanta waxaa farxad noo ah in ganacsatada Jubbaland waxay muddo ku soo tacbanaysa ama socotay maanta in lagu guuleystay waxaan marka hore ogtiin in ganacsatada Soomaaliya ama Jubbaland ay aad ku wax soo dajiyay ama wax keena maanta ganacsatada baadiyo ee ku xoog badnaa xoolo dhaqatadii ayaa halka noo safan oo rabaan inay xoolahooda iyo ganacsigooda halka laga suubiyo ayagoo halka geen jiray Berbero Boosaaso iyo Muqdisho maanta waxay laga dhoofin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo Jubbaland oo ah meesha xoolaha xudunta u ah ee xoolaha Soomaaliya ugu badan gudoomiyaha maxjarka Cabdicasiis Bashiir Aadan ayaa sharaxaad ka baxshay ahmiyadda maxjarkan uu u leeyahay ganacsatada xoolaha nool iyo dhaqaalaha Jubbaland hashi aan muddada dheer ka dhalmasuweynay ayaan rajaynaynaa insha Allah taala maanta in ay inoo curatay oo inoo dhashay wixii hadda ka dambeeyana aan dhami doono caanaheedii iyo barwaaqadii aan ka ku nooloon lahayn insha Allah taala muddo dheer runtii guud ahaan waxaan dhihi karaa maxjar faa'iidada inaga inoo leeyahay ka deegaan ahaan iyo ka dowlad goboleed ahaanba waa mid dhamaanteen aan ka dharagsannahay xoolaha reer Jubbaland waxaad ogeydeen masaafo dheer in ay maaragtay u gali jireen si ay uga dhaafaan dekedaha kale ee Soomaaliya ku yaala wasiirka xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Nuur Buule Dhaay ayaa sheegay in maxjarkan faa'iidooyin badan u leeyahay shacabka Soomaaliyeed xoolaha lagu qalaya kawaanada Jubbaland waxay mari doonaan maxjarka asagoon caafimaadkiisa la baarin neef dambe oo kawaan lagu qalaya ma jiro ku soo dhawaada 24 bisha soo socota waxaa la training gareyn doonaa kawaanada caanaha hargaha iyo saamaha iyo qolo xoololeyda hadii Ilaahay yiraahdo maxjarkan xoolaha lagu soo xareynayo reer Jubbaland 22 casay halka ku jirayaan baaritaan culus ay gelinayaan halkaan sidoo haday uu sheegay gudoomiyaha maxjarka wasaaradda xafiis ay ka furnaysa oo fadhinaya dhakhtarra kadibna dekada nin kale oo fadhinaya sidaas ay xoolaha ku soconayaan dawladda dhaxana waa tii shahaadada sheegtay Jubbaland inta laga bixin doona hadii Ilaahay yiraahdo wax la hubsaday oo la og yahay oo waqti iyo saacad mandate maalin la diri doona hadii Ilaahay yiraahdo meelaha wax loo diray meelaha la garan karo oo waxaan dirayna waxaan dadka la gadanay inay tagi doonaan wax inta la iska qaata la luminayo hadhow lagu keenaa ma jiri doonto hadii Ilaahay yiraahdo agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday in dowladda xoogga saari doonto sare u qaadida aqoonta shaqaalaha maxjarada dalka sidaan u eg oo asagoo bilow ah runtii waa ognahay maxjarada kale siday ku bilowdeen maanta bilowga waa bilow fiican insha Allah annaga wasaarad ahaan waxaan ku dadaali doonaa shahaadada OIE in si degdeg ah oo ku helo maxjarkan si standardka caalamiga ah oo waafaqo taasi waa doorka nooga aadan waxaan kala sameyn doonaa mudan madaxweyne mar walbana tababarada dhinaca maxjarka bilaha ugu soo horeeyay inta sanadkan dhamaanin shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha maxjarka tababar waafi ah ayaan siin doonaa oo dalka dibadiisa ah si ay u arkaan maxjarada kale sida Suudaan ama Masar
midii noo suurta gasho. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa u mahad celiyay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay inuu hirgalo maxjarkan sida wanaagsan loo sameeyay iyo dhaqaatiirta ka howlgali doona maxjarka oo isugu jira Cumaan iyo Masar. madaxweynaha ayaa sheegay in Jubbaland ay ka go'an tahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Jubbaland si loo abuuro fursado wax soo saar loona dhiirigeliyo xirfadlayaasha iyo ganacsatada. waxaan isleeyahay waa guul taariikhi ah inaan helo hadda xaruntan xoolaha lagu hubiyo xanaanadooda iyo ee lagu baaro caafimaadkooda ee marka hore lagu hubinayo waxay noo tahay horumar iyo guud ahaan Soomaaliya oo tahay gaar ahaan Jubbaland oo tahay gaar ahaan Kismaayo noqonaysa loo guduuda jawhar laga soo kaxay arbacada gaaris baa la geeyay jiray Soomaa gaaris intii laga sii qaaday Mombasa laga dhoofin jiray عازله وفرصة صار نقطة لو جدودي اللي عدى لوضع ما أنت هالك على اللي وصل حرية يده همين صار نحوه كذب اللي يدو في يقول تاريخي المغنى إن شاء الله حاولنا وين السنة يا سوقنا وخف عنانا يا على دلوقتي تتوحي وحقرت الله إلى هذا الوسي قاعد هذا الله تبع عنا هالك على كبر الله بدون وكوسة عضيم علينا وعرفنا إن سيلدو هذا مركز لا يصون هذا سيلد أفراد وكلا واحد سيلد الله وجوه إن سيلدو وكلا حلا لا يصون قال سيلد الله سمايه قفك العكتي سلاسية أو هي خسارة قفك مسكين كحلا نقطة ونشتغل فيها لأن هذا حلا عذر رجيل أم إحنا قلنا كان عصرنا نقطة وضد كان الله نكي هرجيس وسيدي بترنا بكارجة لين شر ريال بشر بود بالقولي marka dilaalkii malaalkii macalqadkii xariglihii raacigii saaqii laga jaray inta ay ku noqoto kale inayna noqonin dadka xoolo dhaqatada ganacsatada ay ka soo gataan iyo xanaanaystaan iyo dhoofsadaan dadkana lacagtooda ay hore u qaataan haddii kale deyn looga soo qaataan ribax ay wax laga siiyo khasaaraha xukuumanayo faa'iidada laakiin loo qaybiyo wax yeeshaan loos waxaan isleeyahay xarunta maanta aan joognay waxay faa'iido weyn u tahay Soomaaliya guud ahaan iyo gobolkan hadalkii wasiirku uu lahaa xoolaha magaalada lagu qalbo Jubbaland kale inoo dambeysay in la baaro oo wasaaradda caafimaadka degmada xanaanada xoolaha ay isugu wada tagaan neef aan shahaado wadanin aan lagu qalin ninkii soo gurigiisa ku qalanaya taa lama marin karo laakiin xoolaha dadka sida publica loogu qalay ee sida guud suuqa loogu qalay kawaanada la keenay neefan shahaado wadanin inaan la qalin neefka markii la baaro laba xaalo cudur la daweyn kara hadduu noqdo in loo daweeyo la xareeyo oo qofkii reebaadiyaha keenay loo xanaaneeyo loo daweeyo ama dawo loo siiyo neefka cudurkiisu yahay kud iyo wax kale oo in la gubo u baahanna waa la gowracayaa waa la gubayaa si aan waxay dadka kale iska ilaalinayaan bannaguna iska ilaalinayn hadduu ninkii reebaadiyaha warsiya waa la noqonayaa waxay noqonaysaa ama maxjarka ha u magdhow ama xukuumadda ha u magdhowdo qofkaa magdhow in la siiyo reebaadiyaha sababtoo isagoo ma garan karayo inuu baahi baa ka keentay inuu carruurtiisa u qashuu ka jecel yahay intii la odhan lahaa waa lagaa dilayaa markaa bal intay la qabsanayaan in xukuumadda iyo maxjarka iyo loo tacwiid loo sameeyo loo celiyo qofkaasi waxa baahidiisu ay tahay oo neefkaa markaa si cad looga qabto dadka oo la gowraco la dilo la gubo lagu sameeyo sidaas caafimaadkeennaa ku jira sidaas oo taasi aynaan ku bakaynin waxaan u baahan lahay xanuunada gaarkood wabaa dhibka badan waxyaalo badan keeni karaya inay soo sheegaan qolada maxjarka wasaaradda loo sheego xanuunka noocaas oo kale inuu jiro si baaristiisa loo badiyo innaga iyo ubadkeena dan inoo tahay taa marka waxaan is leeyahay waajibaadkaas waa wasaaradda iyo caafimaadka iyo degmada iyo qoladan xaruntan laba intuba inay qaataan go-aankaasoo taa lagu shaqeeyo laakiin ay ka horeyso in dadka la wacyigeliyo marka hore loo sheego
waxa la marayo iyo waxay tahay si caqliga loogu shaqeeyo beelaha wax lagu qabanaa laftikooda nadaafadooda laga shaqeeyo waan u mahad celinayaa dhakhaatiirta walaalaheen waan isleeyahay iyaga laftoodu culays badan iyo wax badan bay ka qayb qaateen gaar ahaan zeki oon isleeyahay dadaal dheeraada badan buu ka geystay inuu hirgalo mashruucani aad baan ugu mahad celinayaa iyo runta ganacsiga cid kastoo barnaamijka ka qayb qaadatay kala soo qaybgalka agaasimaha guud wasaaradda xanaanada xoolahana waxaan la olaan lahaa isagana waad ku mahadsan tahay waxaan u baahannahay guud ahaan soomaaliya in xoolaheeda iyo caafimaadkooda la hormarido xooluhu haddii hadda calafka la beero oo caws waxaa jira muddo yar ku bixi kara intii la abuuro xooluhu ay nasiiyo ku cunaan waa inay inoo caana badin lahaayeen daalkuna uu ka yaraan lahaa hadda digaaggeenna waad arag markii la yidhaha la qabo maxaad mintiisa isagii baa daalan waa sakaraad lugtiisa waxba laga goosto mar waa taarnaya digaagga la calfiye ay meelaha ku hayaan buurbuuridiisa inkastoo hormareen badan in lagu daro haddana waa weynadiisa waad la yaabaysa keenna hilib uu yeelan lahaa ee dhibka jira maanta oo dhan buna istaagayn hadduu nasan lahaa saa ma noqdo adiga qoraxda haddii laguu sii daayo wax badan baa kugu dhacaya sooma xoolaha laftikooda hadda caano badan baynu ka helayn haddaan intaan meelo calaf loo abuuro aan dejinoon meelo ku hayna wax badan faa'iidaan ka helna xoolaha laftikooda caanahooda oo badan lahaa hilibkaa badan lahaa cidii aan ka guri lahayn intay daalaan laakiin innagii iyo xoolihii waan isku daba dhilana markaa bal mashaariicda ganacsada ha ku darto cawskan la abuuree muddada yar ku baxa dhul intii la seereeyo oo la abuuro dadka xataa ha laga gado oo qofkii ha u suurta gasho sanadkan oo dhan inuu ku barabaxa inuu ku heli karo 2 neef oo gatay inay cawska xoolihiisa ugu filaan karaan in loo ilaa xaddaa loo sameeyo taana ganacsatadu waxaan u malaynaya inay ka fakatay inay aada u fiican tahay aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahad celinayaa maxjarku waa furan yahay officially si rasmi loogu furan yahay waxaa hadda kadib laga dhoofi maalindhood xoola la yidhi boosaasaa loo qaadayaa waxaan ku yidhi lama qaadi karo oo sababtoo mar bay barmuudeeyeen marka cabdilashideeye kale intuu gala in xoolaha soomaalida dhibaato soo gaadhaan u diidanay laakiin waxaan u malaynayaa maanta inaad marin kartaan oo la dhoofin karo halla waan arkayaa sidii maamulkii hore ay sheegayeen xoolaha inaan iyagoo daalan lagu gurino markuu kataan la qabaqabaanin marka hore waxay dhoofinayaan ay ku talagalaan iyagoo nastay oo weliba si fiican loo cafiyey in markaa la rabo si bilicda iyo bildhaanta xooluhu xataa ay u soo kabato laakiin markabkoo taagan baan soo lugaysiinaynaa habeen baan meesha galabgalab fudaydintaasi waxay keenaysaa inaan caafimaadkooda si dhaba loo baarin marka qolada ganacsatada dantiina degdega kuma jiro dantiinu waxay ku jirtaa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo wakti la siiyo doctor maxamed weli iyo jaamacadda kismaayana waxaan oran lahaa waanan kala qayb qaadanayna masalada kuliyadaha hadda ka dhiman jaamacadda kuliyadaas hadda muhiim bay tahay veterinariga kuliyad zaraaca muhiim bay tahay annaga gobolkan si ahaana soomaaliya waxyaalaha u fiican waxaa ka mid a jaamacadaha inay jiri karaan oo kuliyad walba laga dhiso meesha bayska u ah oo la isleeyahay meeshaasi waxay u fiican tahay in halkaa laga dhigo oo ay sababtu tahay meeshaas iyo markaa waxaas kuliyaddaa laga baranaya say xidhiidh u leeyihiin beeraha oo kale haddii adijaar oo kale laga furo ama hogol kale way xamili kartaa xoolaha oo kale gobolkan waxaan is leeyahay kuliyad oo si guud qofka ka imanaya boosaaso iyo ka imanaya meesha u dambaysaay waa inuu garan karayo kuliyadda uu galayahay deegaankii ku taallo iyo macnahay ugu taallo taas isdhexgalka xataa bulshada wax badan bay ka taraysaa ee meel waliba ayna furanin kuliyaad yaryar oo kulli ka wada kooban kuliyadaha xataa waddanka laga dhisayo jaamacaadka in xirfadahooda kuliyad haddii macdan iyo la samaynayo in la yidhaahdo gobolkee ugu roon meeshaas biyaha oo kale iyo macaadinta oo kale haddii la yidhaahdo caafimaadka meelaha laisleeya xanuunada xataa way ugu waxaysan yihiin beeraha oo kale xoolaha oo kale yani kuliyad walba in loo fiiriyo deegaanada oo ay soomaalidu markaa ardaydu gobol walba u waxbarasho tegi karaan kan Kismaayo ka baxay
وإنه تو كلية ده مركو جليو نيفي وكلوميسي يا خيرات كبدو على الأسخار أنت اللي جالس حتى هل كان كليات كان سنة كوسابسن دراسات كوسابسن بدو وكله هاوترو مثلا مال معدن يسأل وكله هل إلى عيادة وكله وحلقة في الكليات البترول والمعادن وكله ويكونوا شيء وحنا ولا يحوم كل كتير على هوسته إلا إلى هذا كان سكان على غير هذه وإنه كلية دي مركا تخصص كمالها لو تونسية وحاس كلية داسي أي لقى برانا يعني أصلوا نقولس إن لها كوب أبو الله يبر أو بنتانا وصمية كلية حنان حالها وحسبها مال كم وضعني مجتة أي حالها وحوق بدر حرام كلا بعد الله أو بعد الله أنا ديان كان أو بدر بس كلية داس وكله يلا مالها قرقرت الجيل كتير حالها قرقرت من كركم من كلية كلنا بانك قرقرت من كركم marka taas waxaan isleeyahay sidaas loo qaabeeyo insha Allah wixii xukuumadda aan uga ku tari karno oo ku tarayna kulliyadaas aan laga dhiso dowladda federaalka iyo cid kasta oo xusaysa waan arkayaa in kulliyadku ay noocaas noqdaan odayaasha iyo guudaan ka soo qayb gashay aad baan idinkooda mahadcelinayaa dhakhaatiirtana waxaan oran lahaa anuu ajrin maaha walaalahayna kale hadda dibadda ka yimid carbeed dhakhaatiir baan waxaan rajaynaynaa inay iyaguna kuwa kale Soomaalida waxay aqoon ku dhaamaanahay usii kordhiyaan meeshuna ay noqoto meel lagu kalsoonaan karo dhakhaatiirta Soomaalida ee shaqada ku jirtay in waxa ay baareen wax la qaadan karo oo noqdo laguna qanci karo waxaana keenaysaa dhakhaatiirta sida ay u shaqeyso hadday fudaydsadaan oo yidhaahdaan iga gee waqtigaa nagu yar markabkii waa taagay xoolihii way soo galeen وناو ودخسنا سواء أوكي صع هذه ليلة مركز لما نيجي حوالها قرنا اللي حكى على نفسه كايسو بارد كلو كسبين هل إلا هذا يصاب بحضر وهاي نقارن سامر كان دبعت دبنا وصام مالس مركز دخلتين طبعا لا كشغال برنامج كان يحصلوا يريد يددشين كمركب كلا يريد يددشين خرج ككسر يريد يكون يددشين إذنكو الشغالين وهذا قالتان سدر وقتين أنا سيدة كوكاتا ولو يديكوا دالن شيء بارك حواه بارنا حاطر هذا ما وقت يقول ماضي ساعة الإرادة مش غيرنا حتى أول تايم دين سيا تاسو حيو تريسا إن حولونا النستان لنا دقدو مركب كله ددتشيو ونك كان حسدي ولا هذا شافي هيد ددتشيو مختار ليريو وقت ما نقص عليه وحكى من كانوا حويا قلنا قولي الرئيس مركب ثانا على يتحدثوا هذا بعد ما تنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته